السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا جنال كنا امراس وحا عاوة إنوغو مرتئة دكتور محمد محمود إبراهيم أو كوما قعدير دكتور محمد دات وحانا عاوة برنامج كينا كسو قادم دونا أريمو كسابسان قبل كهيران قال أهان مقالة بلدويني oo sanadadii hore ay marar badan kusoo noqnoqdeen daadad aad u tiro badan marka waxaa kaloo ka wareysan doonaa arrimo kale oo ku saabsan isla gobolkaasi kusoo dhawow maxamed. waa mahadsan tahay maxamuud waana ku dhowahay aad baad maaragtay kaga mahadcelinay sidaad maaragtay igu casuuntay channelkaada. horta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee adduunka dacaleysi iga daawo doonto dhammaan waxaa leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. war la qabaa xiise male ayay soomaalida tiraahdaa. waxaan rabaa inaan ku daro aqoon-yahanadii ka hadlay dhibaatooyinka gobolka hiiraan ka dhacayo sida biyo-baxada, nabadgelyo darrada, inaan wax yar fikirkayga ku beeriyo ama khibradda aan u leeyahay ii sheeg maxaa la yidhahdaa dhibaatooyinka biyo-baxada ay leeyihiin iyo sida looga hortegi karo. horta bulshadu waxa fiican inay isku tashtaan marka hore, kuna tashtaan maalkooda iyo xooggooda ay ku tashtaan, aqoon-yahanadooda ku tashtaan, cuqaashoodana ku tashtaan. dadkuna marka hore waa in hoggaankooda uu yahay hoggaan fiican ee u jidayn karo meesha fiican ay ku dhaqmi karaan. haddii maalin walba hoggaan xun lasoo doorto waxaa xumaanayo maamulkii, haddii la doorto maamul xun waxaa xumaanayo ama dhibaato gaaraysaa shacabka waxaa laga doonayaa inay doortaan qof u qalmo, samata bixi karo dhibaatooyinka dalka ka jira ama ka jira guud ahaan dalkeena ama gaar ahaan gobolka hiiraan ka saari karo dhibaatada jirto si fiican. taasaa horta first ah. midda labaad oon rabo inaan ku daro waxay tahay maamulka laftiisa. qof walba hadduu yidhahdo xil ha lay magacaabo oo xil ha lay dhibo oo dhibaatadeeday leedahay. si fiican qofku waa inuu yidhahdo waxaan ma qaban karo, waxaan waa qaba aqaanaa. sax. haddii laakiin meeshii la magacaabi baa in lagu magacaabaa iraado oo bulshadana aan waxba u qaban karin, bulshada hoog bay ku dhacaysaa. si fiican maxamed, waan la soconaa barnaamijyada iyo waxyaalaha ka kala socda dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Beledweyne. magaalada Beledweyne waxaa kusoo noqnoqday daadad sanadadii hadda lasoo dhaafay iyo weligeedba hore ay u jiri jirtay. marka sidee looga hortegi karaa in shacabka magaalada Beledweyne iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan kuwa ay ku teedsan yihiin webiga Shabeelle iyo webiga Juba sidee uga hortegi karaan in mar walba ay weydiistaan gacan shisheeye inay ay caawiso, sidee ayaga nafsad ahaantooda ay uga hortegi karaan dhibaatada soo noqnoqotay ee magaalada Beledweyne? maxamed waa mahadsan tahay. dadku wax fiican inay isku tashtaan. horay ayuu hadalkii ugu jiro si fiican. dhibaatooyinkan ka dhacayo, fatahaadahan ka dhacayo iyo Soomaaliya waxay la mid yihiin waxa caalamka ka dhacayo. sax. laakiin caalamku wuu tashtaa. sax, waa ka baaran degay. hoggaan bay leeyihiin si fiican. ama waxay leeyihiin qalab oo hore u tashteen. sax. Soomaaliya waxaa laga doonayaa dhibaatooyinka kusoo noqnoqday gobollada Soomaaliya sida Juba iyo Shabeelle. sax. gobollada ay banaan intooda badan ee biyo-baxada kusoo fatahdo ah dadkooda inay tashtaan. sax. maamulkooda ay meesha geysanayaan u noqdaan maamul ay soo doorteen. sax. kan joogo ay isleeyihiin waa musuqmaasuqan iska qabtaan. si fiican. marka sidee loogu baraarujin karaa dadka deegaanka ku nool in ay maamul wanaagsan oo ayaga waxtar u leh, ayaga dhegaysta, ayaga wixii ay maanta baahidooda tahay maqla, sidee lagu dooran karaa maamul noocaas maadaama maamulka oo ka yimaado odayaal qarash doon ah, lacag doon ah oo raba in ay markay wax dooranayaan un raadinaya in ay maxaa la dhahaa dhiilkooda yarkaa ay ku leeyihiin meesha markaasi ugu horreysa ay ka dhacsadaan.
sidee marka shacabka asiga uu ugu baaraandegi karaa qofka maanta ama maamulka u haya ama u ah hogaamiye qabiileedka ayaga u ah sidee uga taxadiri karaan in ay soo doortaan qof wanaagsan oo maamulkii las dhihi kara alla ile maanta ninkan baa wax noo qaban karaa. maxamuud waa ku mahadsan tahay su-aalahadan. waxaa looga hortegi karaa marka hore waa in laga tagaa jifada iyo jifaysiga. si fiican ninka soomaaliga ee gobolkaas ku nool ee kula degan hadduu yahay nin diin leh si fiican iimaan leh ka bixi karo waxyaabahan ii sheeg dalka samata bixi karo dadka si fiican waa in la doortaa. haddii aysan dhicin waxa weeye sida maanta lagu jiro weligeedna laga baxayo. si fiican waa in laga tagaa waxaan leeyahay 4.5ka sax oo dhibaatada ugu weyn soomaaliya gaarsiiyey. sax waxaan rajeynayaa dowladda soomaaliya maanta qof iyo cod in loo dareeri doono. taasaa is leeyahay midda koowaad ee looga bixi karo waa middaas. maadaama qof iyo cod hadda aad ka dhawaajishay in loo dhaqaaqi doono magaalada beledweyn waa magaalo ay ku nool yihiin dad aada u tiro badan, waxaa ku nool qabiilo kala duwan. marka si loo fiirsho magaalada beledweyn hal qabiil ayay ku asteysan tahay oo ummaddu dhanna ay u wada taqaanaa. sidee marka qabiilkaasi meesha ku badan iyo qabaa'ilka kale meesha dega sidee loo walaalaysiin karaa oo hal looga dhigi karaa soomaalinimadan looga dhaadhicin karaa? horta ummadda reer hiiraan haddaa usoo laabto ummadda reer hiiraan aniga qaasaan waxa ka dhashay hiiraan. si fiican gobolka hiiraan kasoo jeedaa dhalasha ahaan. si fiican laakiin dhaqan ahaan kuma dhaqmin wax ku dhaqmay magaalada muqdisho. si fiican kusoo waxbartay aqoontaydii ilaa heer jaamacadeed si fiican kusoo qaatay. sax wixii burburka ka dambeeyna qurbaan soo galay oo nin qabiil yaqaano ama qabiil kusoo koray ama jifays yaqaano ma ahi. ma tihid gobolka hiiraan waa gobol more population ah soomaali ay wada degan yihiin. sax qabiilaan degina male. sax marka gobolkaasi waxaa lagu horumari karaa siduu ahaa jira shalay inuu ahaado. isku duub anaa iskale iyo jifadeena ku badan iyo anaa kaaga badan in laga baxo oo ninka soomaaliga oo wax qaban karo. waa tii 30 sano dadka sida meesha cabdullaahi ciise shal looga soo doorto in maanta waa in looga soo dooro karaa. si fiican sidaasuu horumarku gaari karaa. sax laakiin jifo horumar laguma gaaraan leeyahay. waa runta jifo horumar laguma gaaro hore u gaaro. waa tan maanta ay soomaaliya ku jirto oo dhibaatada dhex taagan oo haddana calamo kala duwan ay u samaysteen ayagoo ujeeda calankoodii ay shalay kusoo qaateen xorriyaddii oo maantana loo baahan yahay in calankaasi kor loo qaado. soo su-aasheedu xigtaa waxay tahay sidee dadka ay ku horumarin karaan ama dadka dega webiga jinkiisa sidee iskaga difaaci karaan ama loogu baraarujin karaa in ay iska xiraan ama ay iska oodaan biyaha mar walba kusoo fataha. midda kale shacabka mar walba loo aruuriyo lacagtaasi ma lagu fakeray in lagu soo gado cagafyo ama wax kale oo looga hortegi karo deegaanka? fanax waa maasan tahay maxamuud. maamulka ayaa wax hagaajiyo hogaanka wax bedelo. si fiican haddii hogaanka la dooranaya meesha kuu fadhiya uu yahay hogaan aan tari karin si fiican ama aan aqoon u lahayn sax maamulka saas lagu jiraya. sax sidaa maaragtay iyo si kasii daran ayaa lagu jiraya. laakiin in hogaanka la dooranaya uu yahay hogaan aqoon u leh aqoon hadduu saxda u lahayn waa inuu noqdaa hogaan daacad ah si fiican oon xatooyo aqoonin, tuuganimo aqoonin, musuq maasuq aqoonin, magac ina ka tago. sax laakiin haddii hogaan maalmalba oo lasoo doorto bulshada soo doortaan maxaa cunaa iyo maxaa qaataa ah iyaguna meeshooda joogayaan halkay joogaan kama kacayaan. 20 iyo dhowr sanaan qurbo joogaan. inkastoo dalka aan ku laabtay haddana markaan tagtid waxaa arkaysaa waxaad ka yaabtid waxaad sheegaysid wax dhegeysana ma jiraan ma ba jiraan. sax
bulshada Soomaaliyeed waa bulsho aad u fiican laakiin hoggaanka ayaa ka xun hogaankii qaldan. hoggaanka qaldan waxaan rajaynayaa in ilaahay u toosiyo maalin kaloon rabayn inaan ku darsado waxay tahay waxyaabaha dhibaatooyinka Soomaaliya u keenayo Soomaaliya guud ahaan dhibaatada u keenayo waxay tahay colaado baa dhacay dagaalo baa dhacay waxaa dhacay dhiig badan daato xaaraan ah si fiican laysma cafin meesha waxaa is leedahay marka waxaa ka maqan dadkii isku calool furnaansho in lays cafiyo si fiican ee ummadda isku timaado oo gobol iyo degmo laga istaago sax ilaahay loo noqdo ilaahay maaragtay tala la saarto sax wixii dhacayna la iska cafiyo marka waxaan ku talinayaa ummadda Soomaaliyeed inay is cafiso si loo gaaro barwaaqo iyo horumar iyo bashbash si fiican colaadan dalkeena haraysay ummaddeena haraysay oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku hayso dadweynahana uu la yaaban yahay waynaga haraysaa waxaan leeyahay la is cafiyo ha loo istaago in laga shaqeeyo nabadda ha loo istaago in laga shaqeeyo sidii maaragtay la isku cafi lahay waxaana laga rabaa inay istaagaan cuqaasha waxgaradka aqoon-yahanada iyo ururada bulshada dhalinyarada bulshada rayidka ah dhammaantood waa inay u istaagaan ummaddan siday maaragtay isku cafi lahayd la isugu maaragtay labsalaaxi lahay dhibaatadii dhacday colaadii dhacay sooma noqonayaan si fiican wax dhacay ma soo noqonayaan marka saynis wuxuu yidhahdaa in falkeeda la galo falkeeda in la galo si looga wixii dhacay oon soo noqonayn inaad tiigsano waa qalad waa in laga laabtaa ilaahay loo noqdaa islaam baan nahay laisna cafiya qof Soomaaliyeed oo dhibaato gaarin adduunkan ma jirto sax waay maalin dhexdaas waxaad ka dhawaajiseen in idinkoo ururo ah in aad furi doontaan bangigaasoo ah bangi horumarineed oo aad ka hirgeli doontaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaaladiisa Beledweyne yaa idinku taakuleynaya arrintaasi aadka muga weyn u leh runtii waxaan rabaa inaan maxamed ku xusuusiyo Hiiraan oo keliya maaha gobollada Soomaaliyeed oo dhan iyuu qorshuu yahay inaan ka furno bagees waa horumarinta beeraha iyo wax soo saarka dalkeena iyo in bulshada lagu wacyigeliyo in dalkooda wax ka soo baxaya cunaan laakiin qorshihiina bilowgiisa wuxuu ahaa in Beledweyne laga hirgeliyo Beledweyne waa fadhiga si fiican laakiin qorshuhu wuxuu yahay wuu ka ballaaran yahay Soomaaliya oo dhan ayaan gaarsiin doonaa insha Allah meel walba ay Soomaaliya degtana waan geyi doonaa waa feker aad u fiican oo maaragtay muddo badan laga shaqeynaya maadaama ay tahay magaalada Muqdisho caasimaddii ugu weyneed ee dalka soo laysma oran karo waa tilaabsateen oo magaaladii caasimaddii ummadda Soomaaliyeed waxaad ka jeclaysateen inaad ka furtaan magaalo bartamaha Soomaaliya ku taala soona bangigii kasoo bilaaban magaalada Muqdisho misleeda wuu ku horumari karaa magaalada Beledweyne fikir walba oo wanaagsan meeshii laga abuuro waa la gaarayaa caasimadda Muqdishona waa caasimaddii ummadda Soomaaliyeed والبلد كمية لكن وحنقاسي دونا سيدا بلعب جوهر أفقوي خيولي شلانبود إلا كسمايو جبوينك إلا عن كانونا بيولاي دادو وقل سماليا ممكن ببت كده وعلوت الماما إنو باريس إيه بوكي وطلواتي كو ويهي الله بيهالكا سيمركا اللوغة فأيسو وين قبل والبق وصوالي لقاسيا waa gartay wiigii hore magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir aad u ballaaran oo ay kasoo qayb galeen madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shirkaasi uu ahaa beel gooni ah maxaa is leedahay shirkaasi uu ka soo baxay shirkaasi wuxuu ka dhacay hotel yiraahdo Targeejo oo kale caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho
inay beel shirto ceeb ma aha si fiican laakiin shirku inuu ka dhaca waxa qurux badneed magaalada beledweyne maadaama ay yihiin dad kasoo jeedo magaalada beledweyne senataro aqoon-yahano xildhibaano wasiiro madaxweyne hirshabeelle aragtidoodu waxay ahayd inay taas ka sarreyso si fiican ay geeyaan shirkaasi meeshuu maaragtay joogaan oqaasha iyo bulshada qaybeeda kala duwan oo ah caasimadda gobolka hiiraan lana gaarsiiyo fikirkii wadaan ummadda degan gobolkaasi lana mideeyo dadka degan gobolkaasi la walaalayo hadday walaalo wey yihiin oo dad isku fiican oo maaragtay wadada degan oo od wadaaga oo walaala oo weereydaan laakiin waxay ahayd in la gaarsiiyo magaalada beledweyne waxaan rajeynayaa inay qaadan doonaan inay tagaan gobolka hiiraan fikirkoodii hotel giyaajo magaalada muqdisho ka dhacayna ay gaarsiin doonaan caasimadda gobolka hiiraan magaalada ganacsiga ah beledweyne waa gartay soo lama dhihi karo maadaama ay shirku ka dhacay magaalada muqdisho waxay ayagu fikirkooda ama islahaayeen magaalada muqdisho waxaa ku badan garadkii ama dadkii waxgaradka ahaa ee magaalada ku dhaqnaa oo caasimadii maadaama ay tahay ee ummaddu dhan iskugu imaan karto dal iyo dibad sidaas darteed ayaa shirki loogu qabtay magaalada muqdisho waan soo dhaweynayaa shirku waa bilow waxaan rajeynaya inuu bilow yahay laakiin fadhigiisu uu noqon doono gobolka hiiraan ummadda deganna oo dhanna gacmaha isqabsanayeen xaqa ka maqan ee hirshabelle lagu maqan maaragtay oo maaragtay xaqiiqo ah oo reer hiiraan dhammaan ka maqanne ay ka heli doonaan qof walba xaqiisa ummaddana shaqo abuur loo samay doono gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed ee maasha maaragtay wax soo bartay oo muddada ah inta qabiil gooni ah oo shiri lahaa soo kama wanaagsana dadka ee beelaha meesha wada degoo dhan in ay wada shiraan wax ayagu u dan ah ee ka wada shaqeeyaan arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada soo laysma dhihi karo waa arrin gooni ah markii loo shiro beel gooni ah markii laga leexdo kuwii kale ee deganaa deegaanka in aanan wax laga soo qaadin aysan ahayn oo miro dhala qabiil walba soomaaliyeed soomaaliya waa qabiil walbana wuu shiraa laakiin waxaad daran inay ku shiraan aan dagaalno aan dadku duulno inay shiraan haddii ay leeyihiin xaq baa naga maqan soo waxaad leedahay aayahooday ka tashanaya aayahooday ka tashan wax ceeba ma jiraan waan soo dhaweynaya laakiin waxaan maaragtay rajeynayaa shirkan shirka xigo inuu noqdo inay kasoo wada qayb galaan oo ummadda gobolkaas degan ay ugu wada qayb galaan si fiican guntii iyo gabagabadii barnaamijka maxaad leedahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer hiiraan gaar ahaan guud ahaan ummadda soomaliyeed waxaan leeyahay iscafiya una istaaga sidii la isku cafi lahay si ilaahay dhibaatada dhacday ee 30 sano jirsatay inooga saaro soomaalida waad ogtihiin inay qurbaha ku wareereen qurbo la aaday kuwa xabsiya ku xiran yihiin kuwa bad ku dhammaadeen kuwa ay dhibaatooyin fatahaada haysato kuwa ay abaaray colaad haysato oo maaragtay iyo cabsi iyo tii si waxaasoo dhan loogu gudbo waxaan leeyahay halees cafiyo waxaan ugu duceynayaa inuu ilaahay maaragtay qulubtooda isku garabsiiyo dhibaatada haysato qofku waxaa daran inuu dhibka haysto uu garan waayo meesha laga jiro iyo meesha laga soo weeraray iyo xanuunka hayo qofka hadduu garan waayo waxooga waa lafteeda waa xanuun kale marka xanuunka hayo soomaalida allah garasiya leeyahay waa xanuunkaasi waa qabiil oo maaragtay waa cuqdad hala iska saaro hala is cafiyo maamuladana ha u istaagaan leeyahay iyo madaxa soomaaliyeed daawadayaal halkaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii caawa ee ku saabsanaa gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxaana marti iigu ahaa doctor maxamed waxaana leeyahay aad ayaa umahadsan tahay sida aad nooga ajiibtay barnaamijkeena caawa inaad nagala soo qayb gasho waxaana ummadda soomaaliya leedahay halkaad naga daawanaysaan waa emras channel haddii aad barnaamijyadeena ka heshay ay ku xiisageliyeen
waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe-ka nagu caawiso, like and comment. sheerkana waa wax loo baahan yahay si ay ummadda Soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan ay u arkaan. waxaana leeyahay maxamed aad ayaa u mahadsantahay. aad baan kaa mahadcelinayaa si sharafta maaragtay aad warayskani iga qaaday. waxaan kaloo u mahadcelinayaa kaamiristaha youtube-ka canal Emras. aad baad u mahadsantihiin iyo asxaabta meesha fadhisaba waa idinka mahadcelinaya dhammaantiin. Thank you.